munaasabadan oo lagu weyneynayay xuska sanad guuridii 51 ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed tan iyo markii la aasaasay ayaa xalay fiidkii hore waxa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Xuska munaasabadan ayaa ahayd mid si weyn ay u soo agaasimeen isla markaana ay soo qaban qaabiyeen ciidanka asluubta. Intay socotay munaasabada waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka asluubta Koonfur Galbeed, saraakiil ka tirsan ciidanka qaybihiisa kala duwan, kooxda fanaaniinta ciidanka asluubta, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo iyo marti sharaf kale. intay socotay munaasabada waxaa hadallo ujeedkeedu ahaa baraarujin iyo waxqabadkii ciidanka sharaxay taliyaha tirada soo dhaweynta iyo maxaabiista saldhigga Sargaal Xasan Cabdi Aadan. waa inta ay qabtaan dhammaan ciidanka dalka waxa intaas u dheer ilaalinta waxbaridda iyo dhaqan celinta maxaabiista ay soo xiraan maxkamadaha dalka kuwaasoo dambiyo kala duwan ka gala dalka dadka iyo diinta, xanaaneynta iyo barbaarinta ubadka Soomaaliyeed ee agoonta ah iyo danyarta ee aan lahayn cid daryeesha noloshooda iyo mustaqbalkooda. mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ciidamada dalka oo dhan, gaar ahaan sareeyaasha, saraakiisha, kormeerayaasha, saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo dhammaan xaaskooda ee caruurtada. waxaan leeyahay hambalyo. taliyaha ciidanka asluubta Koonfur Galbeed gaashaanle sare Aadan Axmed Dhiigabriq ayaa hambalyo u diray saraakiisha sarsare ee ciidanka asluubta iyo ciidanka intiisa kale. Husku kamaya ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed sanad guuridii konton hadal ani aan toosiyaan oo kuma yata waqtigii uu dhalanayo ciidanka asluubta farhada wali aan gidgafay ma dhigafay sababahaas oo kale farhada la gidgafahay ciidanka asluubta ma ku qeyb qaadaday wal barashada aqoonta hadda jidita fadhiyaan oo garaabaska aruuriyaaya waliba oo qaldano aswaalateen waliba ka suwaay habsiga hooblashada isla markii dhashay ya daahir sidii salaada bilaawe banaanka aawjay aad sawir hakonoogi ciidanka asluubta ma ka qeyb qaadaday kuntaano adargaas ma ka jara shargaamo ma ka jara oo dharkii oo maxaabiista loo fadi bulkeeti suubihay maadi idini bardahay waliba banaanka la ku noqsan ay tawalka bardahay waqtiga dambe dhasho ida aan mahadsantiin boqolkiiba boqol wa billahi tawfiiq. Maxamed Deeqsir Jito, RTN TV, Baydhabo.